madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa 8 bishan gudoomiyaha gobolka banaadir u magacaabay ahna duqa muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale haddaba warsan TV oo nolol dhex qaadnay shacabka muqdisho mikrofoonka waxaan wax ka weydiinay hawlaha mudan in hortaminta la siiyo waxayna shacabkuna xoog saareen hawlaha ay rabaan in mudnaan gaar la siiyo sida amniga caafimaadka iyo waxyaalihii kale ee la xiriira waxayna codsadeen in mudnaan gaar la siiyo in la cirib tiro kooxaha burcadda ee dadka dhaca magacaygu waa Axmed Islaaw muhiimadda waa in ay gudoomiyaha cusub la magacaabay caasimadda Soomaaliya waa inuu wax ka qabtaa wadooyinka meelaha biyaha fadhiyaan iyo wadooyinka jajabsan iyo marshabeedyada iyo gaadiidka oo aan traffic aan kala hageenin marka waxaan kula talin lahaa gudoomiyaha cusub inuu muhiimadda saaro dhalinyarta darbijiifka wadooyinka waxbarashada caafimaadka iyo arrimaha kale oo macnaha loo baahan yahay muhiimadda inuu saaro priority ka dhigo meelo mugdiga jira sidoo kale wadooyinka nolol jiro lagu dhajiyay oo sida solarka oo kale waxa waaye bil kadib ma shaqeynayaan wadooyinka waxay noqotay meel oo mugdi haweenkii 3 saac kadib lama socon karo waxaan kula talin lahaa inuu macnaha wadooyinka solarka la geliyo yani nalalka inay si fiican ay sameeyaan ay dhisaan sida nalalka leerka iyo meelaha marshabeedyada ay sameeyaan aan kula talin lahaa gudoomiyaha cusub dad waxay jireen inuu dhac ku haya sida ciyaal weerada iyo koox kale burcada exactly waxa jiro xaafadaha Madiina iyo Kaaraan meelahaas iyo waxa ka jiro amni xumo aad u baasan waxa arkaysaa haweenkii dad la macnaha lagu turayo tooreeyo iyo ciyaal xaafadeed dadka ku dilayo mindi ku dilayo runtii dadka cabsi aad u wajahan ayaa soo food saartay oo degan deegaanadaas markii la gaaro marqab kadib dadka waxa arkaysaa inay kala cararaan before farmaajo markuu joogsada ma ahayn amniga aad u fiicnaa ilaa 8 saac ala socon jiray hadda waxa u maleynaysaa in dadka ay baqayaan ay kala xaroonayaan marka kuwaas in la sifeeyo si baxaafadahaas aad iyo aad ay u fiican tahay ani waxaan gudoomiyaha baqo ugu diri lahay inuu yani adkeeyo amnigu waa xun yahay yani ayaantan dambe waxa soo wata ciyaal weero oo ayakuba naqdeen argagaxiso marka aniga waxaan u sheegayaa inuu macnaha amniga la adkeeyo bismillaah horta marka ugu horeysa waa soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho gudoomiye madaale waa soo dhaweynayaa waxaweyaan taladaan siinaya waxaweyaan horta guud ahaan in lagu seexdo waa seexan hawlo badan baa u yaalla caasimadda oo nabadgelyadeedii xumaatay magaalada bilicdeedii aad moodo inay hoos u dhacday soolaradii hore u shaqaynayn waddooyinkii magaalada marka roobdoobiya fadhiisanayaan magaalada oo ay dad badan ku soo baxeen oo daafaheeda ay qaxoon fara badan oo soo barakacay oo abaaru soo barakiciyeen joogaan waxa weeye waqti hawleed buu yimi gudoomiyuhu waqti raaxo muu iman waxaan leeyahay gudoomiye ha isdhiganin hawl badan baa kuu taalla han weyn baanu kaa qabnaa hore aad u soo shaqaysay waa ku tuhunsannahay inaad wax qaban doonto laakiin waxaan ku leeyahay nin lagu seexdo waa seexan gudoomiyaha cusub madaale waa soo dhaweynaynaa waa markii labaad uu soo laabto hadda arti Soomaaliya lama arki jirin qof soo laabto 2 jeer laakiin xigmad baa ku jirta meesha talooyinka aan siinayo gudoomiyaha waxa kamid ah maadaama waxaana uu horena u soo qabtay haddana uu dib ugu soo laabtay mudnaanta koowaad inuu siiyo magaalada bilicdeeda inuu arrimihii bulshada wax ka qabto gudoomiyaasha gobolka banaadir siyaasadii waxa loo dirsamay ku ordaan laakiin gobolka banaadir wuxuu u baahan yahay qof nadiifiya biyo nadiif u soo saara koronto u hela amnigeeda suga arrimaha bulshada si toos uga shaqeeya uma baahna qof canshuurta ummadda ka aruursada xoolaha ummadda booba siyaasadda aan asaga loo dirsan ka shaqeeya laakiin siyaasadda gobolka lagu maamul lahaa inuu la yimaado marka duq iyo gudoomiyaha wada jira maadaama ay gobolka banaadir ay saaran yihiin waxaa la rabaa siyaasadda kaliya inaan focuska la saarin dhammaan bilicda magaalada horumarinta dhismaha waxyaabahaas oo dhan laga hagaajiyo
waxaan leenahay shaqo wacan hadda waa sugaynaa ka hor dhici mayno soomaalidu qof aan weli shaqayn bay dhaliilaan lama rabo ha lala shaqeeyo waan la shaqaynaynaa cabdiwahaab curguje warsan TV muqdisho